waxaan jeclahay inaad codkayga si fiican u maqlaysaan. waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London. waxaa ila jooga nin dhalinyaro ah oo walaal ah oo gacal ah oo aad iyo aad u dhibaataysan oo ka duwan wiilkii hore ee hadda ka hor aan soo daynay halkan, laakiin waa nin kaloo dhalinyaro ah, kitaab quraan wata, jeebka ugu jirta adkaartii iyo axaadiistii quraan dhageysanayay, laakiin duruuf aan la soo koobi karinin ay hayso. fadlan walaalihiina kale la wadaaga, asaga ayaan idinku soo dhoweynayaa. wax walba ma rabna inaan sheegno, laakiin waxaan rabnaa si qurux badan oo hufan oo sharafta iyo soomaalinimada iyo dhaqankeenna uu ku jira inaan u hadalno. ugu dambayntana wuxuu fartiin u dirayaa dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaamiyo wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad. walaal soo dhow marka hore magacaaga. waa dhawahay cabdixafid walaal, magacaygu waa Mahad Yuusuf, waxaan ku noolahay magaalada London. marka ugu horeysa anaa ka codsaday in fiidiyowgan laga duubo, waayo waxaa igu kallifay dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay waxyaabo fara badan. waxaan halkan ka codsanayaa dowladda Soomaaliya ugu horeen maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo ummadda muslimiinta oo dhammaan wixii maaragtay ka geysan kara sidaan wadankayga ugu laabani lahaa in ay maaragtay garab qabtaan. meeshan waan ku dhibaataysanahay, homeless aan ku ahay, waad ujeedaa garaafooyinkan, meel aan ku hoyda ma laha. dhibaatooyin aad iyo aad u adag aan inta lagu soo koobi karin ayaa gaaray. marka waxaan ka codsanaa dowladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inay ila soo xiriirto. lambarkaygana waa oo gudbina. waxaa nooga warantaa waad sheegtay dabcan ila soo xiriirtay. waxaan jeclahay marka hore nooga warantid adigu sidee Yurub ku timid, waa maxayse dhibaatada ka soo gaartay, xagee ka soo bilowday taariikhkaaga? ka soo bilaabay wadanka Talyaaniga, Liibiya ka soo galay, dhibaatooyin fara badan aan soo maray. waxaan islahaa maalinba maalinta ka dambeysay waa ka bixaysaa dhibaatadaysan. intaasoo wadanaan u soo gudbay, balse ugu dambeyn waxaa waaye Yurub sidaad ogsoontiin waa 28 wadan. meeshaad mar fara dhigatid iyo wixii ribood laga qoro meel kasta way yaalaan. taasaana igu kalliftay sidaan u lahaa magaalada wadankan markaa tagtid aad ka bixaysaa wadankan. intaasaan ku soo gaaray dhibaatooyin fara badan aan la soo koobin. soo Liibiya soo martay, Talyaaniga soo martay, iyo wadamo badan oo Yurub ka tirsan sida Jarmalka oo kale. sida Jarmalka waliba waa lagu xiray Jarmalka, yani cirbada lay duray, yani si waxa laygula dhaqmay bini'aadanimada ka baxsan, sida Denmarka oo kale sidoo kale, iyo wadamo fara badan aan soo maray. waa gartay. Jarmalka markaa joogtay waxaa jirtay aad iiga sheekaysay in lagu geystay jirdil iyo dhibaato kale. dhibaatooyin fara badan la geystay, jirdila la geystay, waxyaabo aan la soo koobi karin ma aragtay yani ugu dhacay. balse hadda waxaan ku faraxsanahay markasta in aan wadankayga ku laabto. dadka soo tahriibay ama dadka Yurub u soo hanweyn waxaan aniga u sheegi lahaa wadankooda inay ku noolaadaan ama ha ku dhintaan ama ha ku gaajeysnaadaan. wadankooda wuxuu dhaamay inaysan lahayn. waa gartay. hadda Ingiriiska joogtaa, waxaa ku tahay homeless, habeenkii guri iyo meelaha seexatima haysato, wejigaaga nabar weyn oo madow baa ku yaala, ishu way ku cas tahay. waxaad ii sheegtay inuu nin kugu dhuftay. dilkan yaa kuu geystay? qof cadaan ii geystay anigoo iska u socdo inaan waalana inaan fiyowahay warkama haayo. wadooyinkan saas u mara, baabuurta xataa way jiirayaan. والله لما سو كوبي كره dhibaatada ahaas wax ay caawinayna mala dhibaatooyin fara badanna waa la geystay. ana haddana halkan ka cadeyn karin, balse waxa waaye ma aragtay qadar rabbi waa ku safarsanaa wuxuu Ilaahay ii qadaray. aniga taasan aaminsanahay waa hagaag inaan ka baxayna waa aaminsanahay insha Allah dan wadankayga ku laab. waa hagaag. waxaan jecelahay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago walaalayaal. Mahad Yuusuf telefoon nambarkiisa ayaa wuxuu ku qoran yahay shaashada hadda in kaga muuqda. waxaan in ka codsanayaa si walaaltinimo leh oo Soomaalinimo leh oo sharaf leh, ninka walaalka dhalinyarada ah dhibaataysan wejigiisa inuu idin soo hor fariisto oo ay dib ku tahay ogolaaday si uu danta uu leeyahay u gaaro, in aad fadlan si hagar la'aan u soo caawisaan. magaciisa waa haysataan, xawaaladaha dhan waa taqaanaan, aad u soo caawisaan. Mahad wuxuu kaloo noo dulmaray inay dhibaato Yurub ka soo gaartay. dhibaatada Yurub ka soo gaartay waxaa jira qaar la sheegi karo hadda idin la wadaagnay iyo qaar kale oo aan idin la wadaagi karinin oo anshaxa iyo Soomaalinimada midnaba aan ku wanaagsanayn. waxaad iiga warantaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa adigoon hoos u guda galaynin ee ku soo gaaray
inta aad yurub joogtay iyo waxaad oga cararaysid maanta ingiriiska oo aad u rabtid in soomaaliya lagugu celiyo waxaa waaye horta dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in meel laygu xiro qol laygu xiro oo maaragtay anigoo dharka dhan layga dhigo kaamira qolka uu ku xiran yahay sariir laygu xirxiro oo layskaga kay dhigaya dad dawladda aanan luuqadina aanan garanaynin awoodna aanan u lahayn meel aanan ka dacwoodana aanan awood u lahayn luuqadina aanan garanaynin wax caawinaya ehelna aanan ii joog mindhaa hadduu xataa ehelkaaga joogo inaysan ku caawini karin aan aaminsanahay aniga waddankan qurbaha ah waayo ma aragti systema u yaallo yacni wejiyo fara badanaa lagu soo maraa marka waxaa waaye aad iyo aaday u adagtahay dad badan oo dhibaataysan soomaali ah waan arkay meel aniga aan ku xiran waa arkay oo i dhahaya ma aragti turjubaan maad tahay meeshan maad ka shaqaysaa dad i dhahaya waan arkay anigana aan dhahayo sidiinoo kalaan ahay laakiinse aniga aan ilaahay iska baryahay aanan aaminsanaa mar kasta inaan ka baxayo meeshan cid isoo daasay malaha 2 meelaa lagu xiray jarmalkana waa lagu xiray dalmaarkana waa lagu xiray cid isoo daasay malaha aan ilaahay ka ahayn waa gartay waxaad iiga sheekaysaa hadda ka hor inaad damacday naftaan yara ilaahay kugu ammaansaday gebigeeda inaad ka takhalustid oo maaragtay tareennada iyo waxaa isku dhigtiin maxaa kugu kalifay waddanka jarmalka ay ahayd taas meelaan ku xirnaa waxaan ka soo baxsaday 5 mar markay ugu yartay 5 maraan ku qiyaasay 5 maraan soo baxay waa hamigeygu waxay ahayd inaan meeshaas ka baxsado markaan baxsado waa la soo qabtaa waa lagu soo celiyaa ciqaabtan ku jir ciqaab ka daran la geliyaa waan ka baxsada marka ugu dambeystay waxaan rabay inaan tareen isku dhigo tareenka markuu soo dhaweeyay tareemada dheereeyana uu ahaa no stopka qadar rabbi laakiin sama aysan dhicin in uu tareenkaas injeero anigoo waxaan is arkay meesha ka boodo dhanka kale haddana joogo sidaas aawadeedan haddana la soo qabtay meesha lagu soo xareeyay ugu dambeyn aan haddana ka soo baxsaday markii dambe waa gartay waxaan ku faraxsanahay dadkan soomaalida live ku daawanayna ay ku wada faraxsan yihiin aan ogahay in ilaahay uu ku caafimaad yeelay ku badbaadshay naftaada inaad haligtana uu ka badbaadshay waxaan kaa ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inaan ku garab istaagno waxaan rabaa inaan hadda u gudubno waxaad tiri fartiin waxaan u wadaa dowladda soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre fariinta aad rabtid inaad u sheegtid halkan toos iminka oga sheeg mar labaad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan u sheegaa maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan in yani layla soo xiriiro waddankaana layga saara يعني taas waa muhiimadeeda ugu horeysa sababtu waa maxay dad badan baa halkan u soo cararaya aad uga cararaysa wallahi anigu waxay tahay waan arkay Yurub dhibaatooyinka yaalla waan arkay يعني dad badan oo dhibkooda la aamusana waan arkay balse aniga maanta waxaan ku faraxsanahay wadankayga ama aan ku noolaada ama aan ku dhinto intaas baan ku noolaa wadankayga waligayna cid istaajisay ma aanan arag magaalada Muqdisho waan joogay meelo badan waan joogay cid istaajisay waligay ma aanan arag laakiin sabab wadankan waxa waa caqabado fara badan iga soo maray dhibaatooyin fara badan iga soo maray yani niyad fara badan balse ma aragtay alxamdulillah ana waxaan aaminsanahay inaan ka baxay insha Allah bismillaah kareem caawa haddii aadan kaalmo helinin iyo walaalo ku caawiya xagee hoy ku seexanaysa wallahi hadda ma aragtay in muddo abu sidan u socdo waaga wuxuu iigu bariyaa anoo iska socdo marmarka qaar sidan basaska u saaran waaga ii bariyaa أنا 4 ساعات سوجي دوان أركا أنا 24 ساعة سوجي دوان أركا الحمد لله لكن ما أركتي وكبح إن شاء الله تسن آمن سنة يعني مركز كم أقرأتي وحن سمعيني يا أنا شخصي أهان سي ولالت نماء إسلام نماء ليك الصومال نماء إن أحد عاو كل رأي شو هوتيل أسيحتي وأن كابحنو dadweynaha Soomaaliyeed dawladda afeeda joogana wixii intaan ka dambaysa in ay garab istaagaan madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waliba wasiir Axmed Ciise Cawad waxaan idin ka codsanaynaa ninka walaalka sharci Ingiriis kuma lahan sharci la'aan baa haysa dalkiisa hooyo ayuu doonayaa inuu u noqdo fadlan waxaan idin ka codsanaynaa sida ugu degdega badan inaad noola soo xiriirtaan oo idinkii asaga isugu keen xirno Turkish Airlines baa halkan ka baxda warqad dawladeed baa u soo diri kartaan warqadda dawladeed waxa ay u ogolaanaysaa Turkishku inay diyaaradda saaraan dabadeedna dalkiisa hooyo uu dib ugu soo noqdo uu ehelkiisii iyo qaraabadiisii u tago walwal iyo murugo badan ayaa ka muuqda halkan kama sheegi karno mahadyara waxa soo gaaray oo dhibaato ah oo silaca maxaa la yiraahdaa inta la eg brother waxbaha oynin ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku gargaarayaa iyo walaalaha Soomaaliyeed nin baa tahay adkayso insha Allah ta'ala dhibka waa ka baxaysa hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inaad walaalaha Soomaaliyeed
magaciisa iyo taleefankiisa waa idiin soo qornay fadlan ha isaga soo wicinina dadka dhallinyarada mararka qaarkood inay fudaan laga yaabo si maxaa la dhahaa sheeko iyo maxaa la dhahaa see wax kuu gaareen iyo see wax u dhaceen iyo laakiin fadlan xawaaladda kuugu sokaysa tag wixii aad awoodid u soo dir magaciisa iyo taleefankiisa waa haysataa haddii uu noqoto inuu waddankan ka baxo iyo hadday noqoto inuu halkan guri looga kareeyo uu dego aabbayaasha soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay walaalkaa garab istaagaan hooyooyinka soomaaliyeed oo sharafta leh oo inankii kale boqolaalka kun oo lacagta u yaboohayay hooyooyin iyo gabdho soomaaliyeedoo fadlan nambarkiisa qaata ilaahay dartii wejigiisa kariimka uga soo buuxiya maxaa la yidhaahdaa u soo buuxiya akoonkiisa akoonkiina aakhiro ilaahay idiin buuxinayaa ugu dambayntii maxaad odhan lahayd ugu dambeynta waxaan u sheegaa dadka soomaalida yani u soo tahriibaya waddamadan in aysan seef ahayn waddankan oo yurub inuusan seef ahayn waxaa seef ee waddankaaga ku noolaaw yani taasaa kuu dhan sidaan aaminsanahay aniga waayo ma aragtay waddankaaga waa dad luuqadiisa aad wada garanaysid waa waddankaaga waa dad soomaaliyeed cid ku dhibaataynaysa ma laha balse waddankan seefna ma jira wax xuquuqul insaan la dhahaynaya ina lagaga sheekaynina waxaas ma jiraan intaasoo meel anaa maray anaa intaasoo ma aragtay gudraadiyey wax ay caawiya wax cid ku caawinaysa ma laha marka waxaan dhihi lahaa ma aragtay qof kasta waddankaaga intaad ku soo tahriibi lahayd iyo intaad ma aragtay yani haysatidba waddankaaga adoo ku noolaatid wax ku dhaamo ma laha intaasaan aniga fari lahaa ummadda soomaalida waxaa jirtay gabar dhallinyaraha soomaaliya aad kula kulantay waddamada yurub Finland iiga sheekay gabadhaas waxay ahayd gabar yar waxaan ku qiyaasay 23 jir waxaa la dhahay shukri anigoo Finland wax yar joogo oo kaam ku jira subaxaa la imaado waxa lagu dhahay inuu qof xanuunsan ama telefoon ku hadlaayo habeenkii naagan shukaansadaan waxaan isleeyahay maadaama aad ma aragtay aad tahay qof ma aragtay yani refugee oo aadan sharci lahayn gabar sharci leh ku raadsa meesha taasaan isdhahay fursad weey ayagana way imaadeen waxay uraan war waxa tahay qof xanuunsan tahay waa lagu xiraa lagu dhahay inuu ma xanuunsanayaan ku dhahay aniga ma aragtay qof ma aragtay caafimaad qabaan ahay waxay u dhahay ma ilaa waa lagu xiraa gaariga meesha la soo dhigtay kadib waxa dhacday turjuwaana leh waxay Soomaaliya waxay u dhahday ama yeel ama diid dadkan inay ku wadaan ay diyaar u yihiin hadda raacisna raacdi kalena qasab lagu wada xagee lagu wadeen meel lagu geenaa lagu dhahay marka waxaan ku dhahay haddaan waddanka iskaga taga aanan qaxootinimadiina aanan rabin iskaga laabtay Sweden iyo dhankaasan ku dhahay waxay ugu dhahay maya ma laabanaysa okay aan ku dhahay aniga ilaahan talada u dhiibtay maadaama haddaan cararo waddanka aniga aanan garanaynin meelaan u carar aanan garanaynin waa raacay laakiin aniga ilaahan talada saartay sidii loo waday muddo 40 daqiiqo waxa la geeyay isbitaal dhulka hoostiisa bas saas markaan u galay isbitaalka dad waxa ku jira waayeelo iyo dad ma aragtay ajnabi iyo dad fara badan ku jiray adiga qolal lagu xira kamera ku xiran meeshii irid leegama xirin laakiin iridan taagda gabar waxaan arkay sariir lagu biixayo Soomaali 23 jir qoreelaadka oo faleembana suran gabadhii wajigeeda markaan aqoonsaday inay qof Soomaali tahan la hadlay walaal Soomaali ma tahay way iska oosay waxay ugu dhaaday Soomaali ma tahay turjuma ma tahay ugu dhaaday maya inta ma ka shaqeysaa maya markaan saas intaan isla gaarnay oo wareysigii intaas noo mareysa aan waxaan ku dhahay meeqay ku jirtaa meeshaan waxay ugu dhaaday 9 bilood oo ku jira cid iga warhaasana malaha kaamana leega soo watay ugu dhaaday markay arintaas ay dhahday waa la imaaday aniga jeegadaas la qabtay qolkii lagu tuuro waxaan ku dhahay maadaama meeshan ay dhakhtar tahay isbitaal ay tahay aad ileedihiin gabadh sabab inaan ku wareysto maxad ii diidantiin aan ku dhahay marka waxa lagu dhahay idab daranta meeshaada galaan lagu dhahay maxaad u maleysay inay kugu diidaneen yani information inaan kala qaadano aan is ogaano qof kasta wuxuu meesha ugu jira wala kala waardiyeenay waay anna waa fikir marka haday meesha isbitaalka magaciisa ma xasuusta aniga magaaladu ku yaalayna waxa waa lambaranda Finland lambaranda ma ayaa lambaranda lambaha ma qarafkooda lambaranda meeshaas kadibna adiga waana la kala ilaaliyay meesha marka lagu xir anigana waxaan waa fikir waxaan aniga tahay ma aragtay meeshan inaysan meel safe aysan meel wanaagsan aysan waa ogaaday balse haddaan isa sii waala aniga inaan riski iyo ma aragtay ka badan aan galay waan isdejiyay kadib gabadhi waa la waday waa la imaaday turjubaana la qabtay waxa ka soo dacwooday shaqaalihii meesha oo kaam ka soo dacwooday dadkaas la tagay la dagaalan ku dhahay aniga dhanba wax yaraan joogay maya dadkaas ka qaato aniga marka waa u jeedaa in la inaba awood malihi haligelin aan bixinaan ku dhahay marka waxaan ku xasuusnaaday inaan dad wanaagsan waa Finland dad wanaagsan waa si fiican ay soo dhaweeyeen ku dhahay haddana way bixin waxay soo laabanayna oo soo banaanka u dhahay haddana sidoo kale ugu celiyay
kadib waxaa laygu dhahay 3 mid kala door inaad inta ku noolaatid inaan meel kale ku geeno oo ii sheeg booliis oo kale ah iyo inaan kaamka kugu celin waxaan ku dhahay aniga kaamka ammaanna waa laga helaa dadna lama dagaala kaamka lagu celiyo habeenkii seexday subaxda haddana anigoo iska joogo 10ka subaxnimo oo kale meel waxaa jirta booste ee warqadaha laga fiirsada qofkii warqad u soo dhacay anigoo meesha taagan waxaa lagu wargeliyay 10 saac 4 saac yani 10ka subaxnimo iyo barka in meesha lagu celinayo haddana kaamka laga waday awal kaamka la geeymo meesha markii waa laga soo wada waxa la geeyay kaamka 3 mid kala dooraa lagu dhahay inaan inta ku gaanin inaan ma arag meel booliis ku xireen ama inaan kaamka kugu celin kaamka igu celiyo kaamka markii lagu celiyo galbi habeenkan seexday subaxdii markay 10ka subaxnimo ay tahay alle imaad anoo meesha taagan waxa lagu dhahay 10ka iyo barka meesha lagu celina isbitaalka gabadha ku soo arkay waxaan ku dhahay aniga ilaa shalay wax ma cunin cunaan soo gadanaa fasaxa waayay ugu dhahay gudihii aan ku laabto qolkan degnaa 2 sarwaalan isku soo xirtay iyo jaakadan isku soo dul xirtay kadib waa soo baxay meelaan imaaday oo tareen laga raac tareenka inta meesha u socdo ma aanan kala garanin oo iska fuulay tareen meesha suuligan galay tareenki 2 stop kadib waa soo baxay kursigan fadhiis waa la imaan tigteeda tigid ma hayo hadda ii jaro 10 euro waa laga qaaday kadib stopkan ku degay waxaan fiiriyay warqadii Helsinki meesha iga jirta dhankan Helsinki aaday tigid kalaan jirta Helsinki markaan tagaan waxaan sii aaday qof aan qaraabanahay oo jooga oo caasimada magaca sheegay meeshaasan tagay kadibna qofkii markaan u tagay qofkii haddana lacag isoo siiyay sidaan ku soo laabtay fiilan aan ku Sweden ku imaaday markaas kadib waxaan soo go'aansaday baasaboorkan haystay inaan Canada aado intaan ku soo galay markaan ku soo galay anoo Heathrow ka baxay Gatwick anoo ka baxay la qabtay eelborka Gatwick anoo ka dhoofay la qabtay sidaasana inta ku degay waa gartay hadda halkan sharci kuma lihi hal sharcina ma lihi sharcina kama rabo maanta hadday dhahay sharciga ugu fiican sintiisiga lagu soo hadday leeyahay ma rabo maanta Yurub waxaa jira Canada aan rabin Mareykan aan rabin Ingiriis aan rabin Yurub aan rabin wax aan rabo mala wadankayga mar haddaan wadankayga taga alxamdulillah waa ku qanacsanahay waa gartay waxaan arkay sharciga ku meel gaarka oo dadka soo galootiga la siiyo aad haysatid waxa ku qoran aadan shaqaysan karin inaan shaqayn karin waxa waaye waxa ku qoran no work in no public fund waaye haddaan no work in no public fund lagu siiyo oo waxa waaye register creation waa adag waxa waa qaxooti ahaan inaad yani u diiwaan gashantahay bisa meeshaas lagu cadeena iyo dambi hadda digashid laga soo raadin kara magacaaga iyo waxaas bes ma jiraan wax dambi oo halkan ka gashay dad wax dambi aan galay malaha Yurub oo dhan wax dambi aan ka galay ma jirto aniga aan dambi ka galay malaha waa gartay maanta haddaan dambi galay lahaasaan banaanka uma taagnaan ilaa meel lagu xiri lahaa waa gartay dawlad aan galay waa gartay waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro hadda ku daawanaya oo ilaa 1500 qof ah ku daawanaysa Soomaaliya aad iyo aad bay ugu xunyiin dhibaatada ku haysata qaarkood waxay ku weydiinayaan halkan dad ma ku joogaan Ingiriis family iyo qaraabo hoose jooga malaha wax family iyo wax qaraabo inta ii jooga malaha wax ii joogtana malaha meesha waxa daay ii sheegtay inaad basaska raacisay oo daawadayaal waxa jira London basas hameenkii shaqeeyo oo hameenkii oo dhan socda sida maalintii oo shaqeeyay haba yaraadaane laakiin shaqeeya ninka odayga basaskaas oo hameenkii saaran yahay baskaas marka hameenkii oo dhan marba wuxuu tagayaa xaafad buu tagayaa saas ayuu waagu ugu bariyaa baska dhexdiisa ayuu seexday irideeda waan seexday Luna House corridor Luna House okay Luna House waxa weeye meesha